Tababare Anthony Taylor ayaa lagu soo waramayaa in laga mamnuucay in uu dhexdhexaadiyo fiinalka Koobka Adduunka sababo la xiriira walaac ku saabsan in uu ku sameeyo Argentine eex qaran. Ciyaarta fiinalka ah ee Axadda maanta oo Argentina ay ku wajihi doonto Faransa garoonka Lusail Stadium waxaa dhexdhexaadin doona Simon Marcinez oo Poland u dhashay. Arrintan ayaa timid kadib markii uu wargeyska Times sheegay in garsoorayaasha Ingiriiska laga mamnuucay in ay dhexdhexaadiyaan ciyaaraha Argentina sababo la xiriira cabsi laga qabo in laga dareemo xurgufihii jasiiradaha Falkland ee u dhaxeeyay Argentina iyo dowladda Britain. FIFA ayaa lagu soo waramayaa inay dhexdhexaadnimada mas'uuliyiinta u aragto mudnaanta koowaad, waxaana la rumaysan yahay in garsoorayaasha Argentina sidoo kale laga mamnuuci lahaa ciyaaraha England. Inkastoo mas'uuliyiinta laftooda aan laga filayn in go'aanadooda ay saameyn ku yeeshaan daacadnimada shakhsi ahaaneed, go'aanka ayaa la sameeyay si looga hortago eedeymaha eexda ee tabanayaan kooxaha ama taageerayaasha. Waxaa jiray warar sheegaya in taageerayaasha Argentina ay muujinayeen dareen xun oo ku wajahan Britain Koobka Adduunka, iyadoo jariiradda Sun ay sheegtay in la maqlay heeso tixraacaya inaan la iloobin Ingiriiska doorkii ay ku lahaayeen dagaalkii jasiiradaha Falkland. Iyadoo laga fogaanaya cabashooyinka siyaasadeed, kooxda tababare Lionel Scaloni ayaa ciyaari doonta ciyaartii ugu weyneed ee xirfadooda maanta. Lionel Messi waxay u noqon doontaa fursaddii ugu dambeysay ee uu ku hanan lahaa koobka uu mar walba ku hungoobayay 8 sano kadib qalbi-jabkii fiinalkii 2014 ee Brazil. Waxa uu wajihi doonaa tijaabo adag oo uu kaga hortagi doono kooxda haysata Koobka Adduunka iyo Kylian Mbappe.